بسم الله الرحمن الرحيم. maanta xalay oo maanta taariikhdu tahay 6 bisha xalay 7 bisha halkan ku celiyo xalay bi shilbaahay soo shalay taariikhdu ahayd 6 bisha koobaad 2014 waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqay inaan iska casilay xilkii xogeeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga UCID xubinnimadii labadaba inaan xalay oo taariikhdu ahayd 6 bishaan iska casilay. sababahan isku casilay waxa ugu waaweynaa wada shaqayn la'aan aan ka dareemay dhinaca xisbiga, istixgelin la'aan aan ka dareemay dhinaca xisbiga, iyo shuruucdii iyo xeerarkii xisbiga oo runtii la wada baalmaray. ta kale iyadana mucjisada ahayd waxay ahayd gudoomiyaha xisbiga markuu ka soo degay airportka wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu xisbiyada mucaaradku ay la furi doonaan wada hadal toos ah dowladda Soomaaliya, taasoo runtii aad iyo aad nooga yaabisay. sababtoo ah xisbigu wuxuu leeyahay structure ama qaab ayuu badanaa xisbiyadu leeyihiin. waxaa muhiim ah in marka hore gudoomiyuhu uu la tashado xubnaha xisbiga, markuu la tashado ee la rogrogo arrinka markaa wixii laga fursan waayo ayaa la yeeli karaa. laakiin waxaan filayaa inaanay ahayn sidii saxa ahayd in isagoo gudoomiyuhu safar ku maqnaa uu dalka markuu ku soo laabtay airportka kaga dhawaaqo siyaasad cusub oo runtii xisbiga markii hore aan qorshaha ugu jirin. wixii siyaasada cusub ama qorshe cusub oo siyaasadeedna waxaan filayaa inay habboon tahay in xisbigu ka wada tashado isla rogrogo dabadeedna uu go'aan ka gaadho. sababaha aan soo sheegay iyo qaar la mid ah ayaa igu kalifay inaan xilkii aan u hayo xisbiga UCID iska casilo xalay. waxaan halkan dhammaan ka salaamayaa taageerayaasha xisbiga UCID meel kastoo ay joogaanba. intii aanu soo wada shaqaynay muddadii aanu soo wada shaqaynaynay runtii aad baan ugu mahadnaqayaa. qofku markuu iscasilo, dadka qaar markay iscasilaan waxaa laga yaabaa inay hadallo badan, ereyo badan oo xasaasiyad leh ku hadlaan. ma jecli inaan cidna wax dhibaataa u geysto, laakiin waxaan u rajaynayaa asxaabtii xisbigii iyo dadkii aan soo wada shaqaynayn ka tegay mas-uul iyo taageeraba, waxaan u rajaynayaa in aanu sidaa isku macasalaamayno. wixii su-aale kalena waan idinka jawaabaya ee ay weydiisaan. waxaad ka mid ahay dadka aadka u leh xukuumadda Soomaaliya yani mucaaradnimada waxaad ku leedahay firfircoon waxay isku dig mingista xakiimadu noqonaya ka tegey xisbiyada ugu mucaaradka ka tegey halkee u soo waa su-aal la isweydiin karo. ilaa hadda kolley muddo dheer baan xisbiyada ka soo shaqaynayay ilaa iyo 2002 markii ugu horreysay xisbiyada Soomaaliland ay soo baxeen. intaba waa ku dhex jiray doorashooyinkii dalkao dhanba waan ka soo shaqeeyey. waayo aragnimo ballaadhan baan u leeyahay xisbiyada iyo shaqadooda. marka saacaddan aan hadda joogo ma jirto meel aanu ilaa hadda aan caddaynayo oo aanu diga rogtay. laakiin dee qofku maadaama uu siyaasadda muddo ku soo jiray way iska dhici kartaa inuu xisbi kale ama urur kale ama koox kale ku biiro. laakiin waxaan jecelahay wakhtigeeda iyo meesheeda inaynu la sugno.